بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ضمان مدحدا qaranka ee kala duwan ee furin iyo golayaal sharci iyo maxkamad garsoor iyo madax dhaqameed iyo ganacsato iyo qaar kale oo wada xusi kareen rag iyo dumar
عرورية عهور آدي بعد السلام يا أنتي نكسر قريب كشه حفلة والسود وينه حفلة ما أنت واحد سيجارة وسيد وينه يا ولا لنا إمارات كعربتها ما حد كتشوفته سفير بوه وياه يحب نكره أو كلمة الدولة ده وصاك زوج على سومال الآن الفريان أو ضدك سومال الآن مال قليل أبدا قليل واختياره أظن آد بنو الله طبعا وإنه أسولنا الساعة الحلو وأسولنا دولة إمارات كعربتها مدح دولة لما أنتم سوماليلاند waxay iskala taageen waqti adag siyaasad ahaan aqoonsi ahaan dhaqaale ahaan Soomaaliland waqti ay ku jirtay waqti adag ay iskala taageen Soomaaliland waa dad abaarka gudaha nin waliba xaquu noogu dhisay iyo wuxuu noo taray taariikhda waa haynana carabta imaaraadka carabtu waa kool maanta ay tageen dhaqaalaha siyaasadda Soomaaliland ee arrimaha dibaddu waxay ku salaysan tahay nin waliba intuu itiro ayuu maantara ammaan tixgeliya ha xoog weynaado ha lacag badnaado magaciisu meel daraa ha gaaro ama ha taag daraado ama ha dhaqaale yaraado ama ha dar yaraadee siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxa weeye nin waliba weelku ugu shubaya ninka qarannimada Soomaaliland ixtiraama ee qadariya ee erenoo yiraahda ama taakula maalina wax naga taraa abaalkaan u haynaa intaan leeyahay wuri ninka arki waaya qarannimada Soomaaliland ama dawladda arki weyda xoog kasta ha lahaado dhaqaale kala haastaado anigoo kumaarka ay hadaan yarkeen baan leeyahay qaran jira oo isku kalsoon ilaahay dalka ku abuuray ilaahay siiyay nimcada wada tashiga iyo tala wadaaga iyo dalkooda daafaca ayaanu nahay kuma habrano waa ka xoog weynahay iyo kuma habrano dhaqaalaha aan wax ka heli doona kuma habrano qarannimadooda ninkii ugu baanu gacan saaran aanu iska qaadayna taa waxa doonayaa inay cid kasta ay dhageysato marka taa ka soo laabto maanta mashruuc aynu joognaa taariikhda aan dheerayn ee dhammaanteen aynu wada xusuusanahay dacwada halkan fadhiyaa oo kursigan 7 sano ka hor ama 6 sano ka hor markii hawsha la bilaabayay waxay Soomaalidu tiraahdaa hal la toosan baan intuu leh dadka siyaasadda hogaamiya dalka ee madaxa dalka ee siyaasadda ka mid ah ee magaca leh ee la dhageystaa waxay gaarsiiyeen oo loo joogay oo meediyaha mariyeen markii laga gaaray dalka la galayaa waa la iibsaday dowladna yaani heerka sal gaarsiiyay guddoomiyihii hore ee xisbiga wadada wuxuu soo gaaray in raahdo maxkamada la saaray madaxweynaha markaa Silaayo iyo guddoomiyihii xisbiga aniga ahaa waa taariikh cad oo kooxda wahayo waxa taariikh ay yaabtahay markaad adu ka marxadfurto waxaad samaysay shirkii waday ee u dambeeyay guddoomiyihii hore ee xisbiga wadani isaga maxkamadda saaray waayo hal saaray madaxweynaha markaa Silaayo iyo guddoomiyihii xisbiga markaa oo ay ahaa wuxuu xaqiiqsaday in raayigii uu ku socday iyo halka aragtidu warkay ay qaldanay oo cid ahayd wuxuu u soo noqday siyaasadii kulmiye ee mustaqbalka fog dalka ugu dhisay quraanka ay taalay waana ta uu ku dhiibay ugu wareejiyay ragga martida oo hay kulmiye u tagay talada xisbiga markuu aqoonsaday inuu ka dirmayo inay wataan waa aragii iyo fishanki kulmiye ku socday markuu arkay isaga xukumay oo ku wareejiyay ragga martida oo hay kulmiye u tagay waana waxyaalaha garowshiya qofka siyaasiga markuu isxukumo oo marxatiga furaabay habood waxaan leeyahay waa soo dhaweeyna xisbiga qaranka mucaaradku waa loo baahay hadii waa muraad aad ka arkayso
waxaana wanaagsan Soomaaliya oo beertay Soomaaliya in siyaasiga qaldamay isagu isu marxad furo sida uu Cabdiraxmaan sameeyay oo kale oo ku wareejiyo cid uu filayo inay wax garanayso haddaan taasi asla intaa ku dhaafo Somaliland fishankeedu muxuu mustaqbalka maxaynu doonaynaa xisbiga kulmiye mabaadi'diisu waa la guuraa mabaadi'diisa ugu horreeya xisbiga kulmiye ka kooka in dalka midnimadiisa iyo cadaaladiisa iyo isku hayntiisa iyo wada lahaanshiisu ay koob ka ahaato dhammaan Somaliland taawul u codaysay ummadda Somaliland waxaa laga doonayaa dastuurkii ay u codaysay oo oranaya qodobadiisa ay koob ka tahay dalka ilaahay baa siiyey shacbiga aan leh awoodda maamulka shacbigu wuxuu u igmaday dawladdu oo dhisto ayuu u igmaday in dalka u maamusho dawladdana waxa la faray oo xeer dastuur faraya nin kasta oo la doortay lagu dhaariyaa in uu daacad u shaqeeyo sinaan iyo midnimo dalka loo dhaariyo heer yahayba hadduu yahay dowladda hoose oo la doortay waa loo dhaariyaa oo dalkiisa lagu dhaariyaa hadduu yahay baarlamaan iyo hadduu yahay madaxtooyada waxa loogu dhaariyaa inuu qaranka mucaariyo muxaafid midnimo u shaqeeyo muwaadiniinta Somaliland ay dalka u sinaadaan halkay doonaan deeri karaan halkay doonaan ka shaqeyn karaan sidaa darteed dadweynaha Somaliland waxaan u soo jeedinayaa inay daarta iyo ahdiya furiyaan oo dalka ay u sinanahay magaalo kasta oo khayraad loo sameeyo loo shaqeeyo oo Somaliland ka dhaxayso oo aan cidina sheegan karin oo ay meel kasta oo macdan laga helo ay Somaliland tahay oo aan la kala sheegan karin ee loo wada shaqeyn karo waa ahdaanu galay waa dastuurkeedii waa ku dhaaranay fikradda aniga inuu ku korraado doonayna adduunku wuxuu nagu ixtiraafaya oo nin walba inuu soo hulaalaya oo nin walba isagoo soo dooranaya markaynu araggeedu mudayno markaynu dastuurkeena si dhab u raacno dhaarteenu gal markaynu kaga rumayno markaynu qalayaadkeena si miir qabto u saxano ee aynu dalkeena guud ahaan u maamulo taasina waa furay gobolka saaxib iyo odayaashiisa iyo dhalinyaradiisa waxaan ku ammaanayaa inay hormood ka noqdaan deganaanshaha iyo in barbarada wada yeesho iyo inay Soomaaliland u hayto dekadaana Somaliland oo dhan baa maxamed xaaji waaciga rasuul sallallahu alayhi wasallam halkaas u istaagay maalintii aanu la bilaabo shaqadeeda doorkii horreysay yimid intii joogtay ashariisashaki wuxuu weydiiyay barbarayaan reer barbaro maxaa ku jawaabteen Somaliland baa maanta waxa gaar Afrika oo shaqeynaysa way Afrika Somaliland dalka geeska Afrika ee aan lahayn badda oo dhan baa loo adeeynaa halkaan af kasta waa laga hadlaa magaalada cid waliba waa timaada oo cid walba waa yeegtaa halka imaka aan maraysa oo soo dhaweyn mudan oo daraashaan lebillah iyo boqolkiiba barrawliga sidaashaa barbar waa soo maxaa laga yaqaanaa way qatanaata wax iyadoo cabasho ma sheegto dhibteedana ma sheegato inta ay dhashay inta ay si ayayda u tahay inta ay sodohda u tahay inta ay dumaashiga u tahay dhammaan dadka oo dhan bahaysa barbari waa hooyadii Somaliland taana hal ogaado kuwa kala kaga dayda gobolada kala kaga dayda mashaariicda la hirgelinayo dad badan waxay nagu canaantaa dawladda waxaa tihiin amuune ama agnaan ma sheegataan waxa qabataan ma faantaan diinteenna iyo dhaqankeena haddaad hawsha qabanayso ma istustus iyo ammaan ayaa loo qabtaa quraanka xaaraantinimeeyey qofka waayeelkii inta badan dadka dhisay ama caalamkaba wadada la aqoon waa majhuul dadka wuxuu qabtaa ma faano marka waxaan doonaynaa oo hor wadaa in la iska bedelo caadada faanka iyo waxaan lahayn lagu amaano waxaanu qabanno ee la taaban karta hor ilaahay iyo dadkeena inuu qabano faan ma qaban waana waajib lagu lahaa mana galo ballan qaadin beer wixii la ballan qaaday kolba toorse la soconaya garoonka maanta waa ogeeyay wixii ka dhacay maanta waxaan ka joognaa garoon caalami ah
وقرمنا هذون كوموينا وولادنا الإمارات كإنه هالقليل إننا نروح على نجار هوا إن نودي الجريرو سيد ومضى عالم كونه من هالكلام صومر لحد جيسك أفريقيا بلد كيلو مر هدو جرير كوموينا ياهي مر هدي كدي كوموينا تاهي واحد أوبها لنا إنه عالم كإنتسين كهلا السلام أنا سوي كذا وحنا ما هاد قارن ما توجه ليه قناع ستره وين السؤال الآن وأهم لما كده الخلق سوق قاسي أما عشورها بحية أما سرقها لقى قاهو أما وركا يكون لا تهوى له وأمر إليه تكار كان ما تقول شرام عوار وليش هو وين فليه وأعشر بها وين السؤال الآن أجل من المنطق ضبطا waxaan sheegay dadka wax tala in la yiraahdo waa bujuro la yaqaan dad badan oo fikradda garoonka in la soo noqdo oo dekeentani ay samaysato kamida ayaa waxa ka raacay eed badan iyo xagasho badan iyo waxaana geeyay uu koob ka yahay ilaahay caafimaadkiisa raajiye saacad calishay waxa kaloo maanta la jooga oo dhibaato badan ka gaadhay baashi caawin oo dhammaantii way garanaysaa intii lagu caayay iyo wixii ka gaaray aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa raggiinii arrintaa marka hore bilaabay iyo wixii ka gaaray qarankiina u shaqaysaan maantana magaceedii baa la arkaya waxaan ku soo koobayaa Somaliland waxa ay qabatay ugu waaweynaa ay ka mid tahay mashaariicda imaaraadka ay gariyeen kharashka ugu badan iyo wadada ceer gaabo oo ay Somaliland kaligeed ay maalgelisay oo ugu mudan tahay doorashadii dowladda oo aad weeyeen inagoo la ictiraafin inaynu dusha u reebeen maamulkeedii iyo dhaqaalaheedii iyo fulinteedii oo ay dhammaan shacabku isxil saareen oo ay laba ku wada hadal oo xisbiyadu isxil saareen iyo siyaasiyiintu oo ay laba isku xigxagan oo ay nabadgeliyo iyo guul ku dhamaynay ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa kuwa soo socdana inuu saasoo kale ka yeelo oo inuu hirgelino inagoo isqabqabsamin inagoo oo si wadanimo ah doorashooyinka u gala waxaan ku soo gabagabeynayaa mar labaad inaan u mahadnaqo iyo mar saddexaadba dowladda imaaraadka carabta madaxooda nagala joogaan Somaliland aad iyo aad bay ku mahadnaqaysaa madaxda maanta joogto iyo dhalinyarada ka shaqaysa oo dhammaantood abaal weyn ku leh Somaliland abaalka waa celisaa waa gudi doonaa insha Allah mid inuu kaga danaa iyo u baahanay dowladda carabta waa dal ay wax badan wadaagno waa islaam dhaqanka waa wadaagna qabaliga ah waa dal yar oo dad yar oo naga dadar inaga haddana muddo 40 sanadood ah waxay noqdeen quwad caalamka oo dhan tixgeliyo ma hal cadoqura ma ha dhaqaale waa ismaqalka talada iyo kala dambeynta iyo waxsuurada ay ismaqleen ayay ruush iyo Mareykan ba kaga adkaadeen sanka ku hayaan maanta oo waxa la qaadanaa la qaaday inay taa kaga daynayno u baahanahay oo taasoo kale yar waxaan aad u maaqaday dadkii soo qaban qaaday xafladan waxaan maaqaday intii hawshan ka qayb gashay garwakan dhammaanteen waxaan ugu dardaarmayaa inaynu dalkeena ka shaqeyno oo u diyaar garowna inaynaan cid ku tiirsanaanin dawlad kasta iyo ummad kasta oo dhibaatooyin geeska jira ay ka mid yihiin gacan nabadeed baan u fidirinaa dadka soo isaayad gudiisa dhexaad baan u ka nahay ninka abaal loo guuyo waa mahadnaq Allah waa ugu yeelaa kiina arka waa